fadhigii maanta golaha guurtida Soomaaliland oo shir gudoominaya gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa waxa ay warbixin kaga dhageysteen gudida siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxaana halkaasi warbixin ka soo jeediyay gudoomiyaha gudida siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee golaha guurtida Soomaaliland markii aanu darisnay doodii mudanayaasha ee golaha ee kala fadhigii 64aad markii aanu akhrinay hadal qoraalkii dooda golaha waxaanu ku soo ururinay hadalladii iyo doodihii arrimahan hoos ku qoran doorashadii dalka ka dhacday oo u dhacday si nabadgelyo ah arrimaha gudaha kala bixinteedii weeyaan laba in la adkeeyo arrimaha nabadgelyada ee dalka oo dhan saddex in la daadajiyo maamulka dalka heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo siyaasadda dibadda waxaanu ku tala bixinaynaa in la xoojiyo xidhiidhka wadamada jaarka ah ee xagga nabadgelyada iyo ganacsigaba laba in la soo dhaweeyo maalgashiga dalka ee dalalka dibadda iyo shirkadaha gaarka ah saddex in la xoojiyo aqoonsi raadiska dalka jamhuuriyadda Soomaaliland afar in la dardargeliyo wakiilada Soomaaliland u fadhiya dalalka dibadda in la dardargeliyo wakiilada Soomaaliland u fadhiya dalalka dibadda si ay uga qayb qaataan aqoonsi raadiska iyo tala bixinta iyo xidhiidhka dalka iyo dibaddaba ay isku xidhaan